sanadihii u dambeeyey mowduuca baddu waxa uu Ethiopia ka dhex noqday midka loogu hadal haynta badan yahay marka la joogo doodaha siyaasad degaleedka iyo horumarinta dhaqaalaha dalkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isagu udub dhexaad u noqday hadal hayntan isagoo siyaabo kala duwan iyo fagaarayaal kala jaad ah cod dheer kaga sheegay inaysan Ethiopia ku sii jiri karin xaaladda bad la'aanta ah iyagoo tiro ahaan 130 milyan kor u dhaafaya ayna ku hareeraysan yihiin dalal leh xeebo dhaadheer tirada dadkoodu ay aad uga hooseyso heerkaasi. waxa uu ra'iisul wasaaraha ku dooday in nidaamkii caalamiga ah ee dunida uu isbedel weyn ku yimid Ethiopia ay tahay inay dib ula gorgortanto dariskeeda isla markaana ay hesho dariiq ay ku gaarto badda. mararka qaar waxa uu Abiy Ahmed ku sifeeyay arinta gaaridda baddu inay tahay mid aan kaliya la xiriirin horumarin dhaqaale balse ay sidoo kale tahay mid la xiriirta jiritaanka dalnimo ee dalka Ethiopia. haddaba su'aasha dhabta ahi ee aan rabnay in aan maanta kaga jawaabno barnaamijkeenan maaha inay Ethiopia u baahan tahay inay hesho bad iyo in kale, laakiin su'aasha dhabta ahi waxa ay tahay maxaa xilligan ku soo beegay hadal haynta dheeraadka ah ee ku saabsan inay Ethiopia u baahan tahay inay hesho bad. yaase la ayaanu doonaynaa inaanu barnaamijkan ku ogaano in arrintan lagu saameeyo. waxaad ku soo dhawaataan sawirka guud. magaciigu waa Maxamed Cabdi Xaraare. qodobkan ayaanu maanta dhinacyo kala duwan ka eegi doonaa oo aanu isdul taagi doonaa, laakiin marka hore aanu eegno 60 libiqsi iyo wararkii ugu dambeeyay guud ahaan caalamka. ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay gabi ahaan baxreen marinka Hormuz. afhayeenka baarlamaanka dalkaasi ayaa cunaqabataynta Mareykanka ee dekedaha dalka Iran ku tilmaamay mid nacasnimo ah, isaga oo sheegay inaanay maraakiibtu mari doonin marinka ilaa Mareykanku uu qaado go'doominta uu ku hayo sida uu dhigay dekedaha dalka Iran. dhanka kale inkastoo ay dadku dib ugu laabanayaan koonfurta Lebanon, haddana waxaa jira warar sheegaya in Israel ay duqeymo ka geysatay qaybo kamid ah aagagii loo jeexay inaan lagu dagaalamin. sidoo kale dilka loo geystay askari u dhashay dalka Faransiiska oo qayb ka ahaa nabad ilaalinta ayaa kor u qaadaysa cabsida laga qabo inay xabad joojintu halkaasi dunto. Ukraine ayaa baaraysa weerar argagixiso kadib markii nin hubeysan uu dad ku laayay bakhaar laga adeegto oo ku yaala caasimadda Kiev. weerarkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof ka hor inta aanay ciidamada boolisku toogan ninkii weerarkaas geystay. Pyongyang ayaa maanta tijaabisay dhowr gantaal oo ah nooca ballistiga ee ridada gaaban. waa markii toddobaad ee ay Kuuriyada Waqooyi samaysay tijaabo noocan ah sanadkan, taas oo keentay walaac xoogan oo dhanka ammaanka gobolka ah. guud ahaan qiimaha gaaska iyo shidaalka ayaa caalamka kor u kacay 30% sabab la xiriira colaadda bariga dhexe ka taagan. si loo qaboojiyay xiisadda dhaqaale, maamulka Donald Trump waxa uu kordhiyay muddada cunaqabataynta laga qaadayo shidaalka Ruushka si bay yiraahdeen looga fogaado sicir barar inuu ka dhaco gudaha dalka Mareykanka. waagaag sawirka guud aynu ku noqonay 30 sano ayaa laga joogaa markay Ethiopia lumisay gaaritaankeedii badda kadib gooni isku taagii iyo madax banaanidii dalka Eritrea 1993. waxay ahayd xilli ay Ethiopia iyo Eritrea labaduba ka soo kabanayeen dagaalo sokeeye oo aad loogu riiqmay oo ugu dambeyn xukunkii looga tuuray nidaamkii military ee uu caynaanka u hayay Colonel Mengistu Haile Mariam. hase yeeshee muddo kooban kadib markii Ethiopia u soo laabatay xasiloonidii gudeed, dowladnimaduna bilowday inay tis qaado, waxaa dhashay guux ka dhex jira dowladda iyo dadweynahaba oo ku aadan in Ethiopia ay si weyn ugu baahan tahay gaaridda badda iyo in ay hesho deked ay u adeegsato horumarinta dalkeeda. sanadihii ugu horreeyay ee bad la'aantu waa ay ka culays yaraayeen sanadihii ka dambeeyay, waayo xiriirka ka dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea iyadoo ah dalka la go'ay badii ay Ethiopia lahaan jirtay waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan. se markii uu xumaaday xiriirkii Ethiopia iyo Eritrea una dhacay dagaalkii lagu riiqmay asi aan lagu kala adkaan ee 1998 ilaa 2000, Ethiopia waxa uu bilowday geedi cusub
oo ay ku doondoonaysa inay ku gaarto badda. waxay durba u wareegtay Jabuuti halkaasoo ilaa maanta uu maro wax ka badan 95% ganacsigeeda dibadda. Soomaaliya iyadoo oo dowlad la'aan ahayd muddada oo saaxadda dowladnimadaba ka maqnayd, waxa ay dadkeedu qabeen tuhun ah in Ethiopia ay ku soo hungooday badii Eritrea isla markaana ay doonayso inay ka faa'iideysato maqnaanshaha dowladii dhexe ee dalka. waxaana dareenkaasi hulaaqiyay faragelintii joogtada ahayd ee ay dowladii Tigreegu ee hagayeen ay ku haysay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee ugu dambeyn taangiyadoodii geysay caasimadii Muqdisho iyo xeebaha badweynta Hindiya. sidaas oo ay tahay, marka laga soo tago tuhunkii ay Soomaalidu qabtay, nidaamkii Tigreegu si bareer ah umana sheegin jirin in uu danaynayo badda Soomaaliya. 2018 Ethiopia waxaa ka curtay nidaam cusub oo uu hogaaminayo Abiy Ahmed Cali oo ah nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. sanadihiisii ugu horeeyay, Abiy waxa uu saaxiibtinimo dhow la sameystay Soomaalida iyo dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. laakiin waxa ay wax walba isbedeleen sanadkii 2023 kolkaasuu ra'iisul wasaaraha Ethiopia iba furay dooda bari iyo bogoxba qabsatay ee badraadinta ah. balse waa maxay ujeedada dhabta ah ee Abiy Ahmed uu ka leeyahay ku soo celcelinta dooda badda? maxaase keenay inay bilaabato 2023 oo aysan bilaaban 5 sano ee ka horeysay? inay Ethiopia tahay dal bad la'aan ah waa qodob la wada ogyahay. inay baahi u qabto gaaridda baddana waa sidoo kale qodob la wada ogyahay. laakiin Ethiopia waxa ay haysataa dekedaha Jabuuti, waxa u furan kuwa Kenya, sidoo kalena Soomaalidu diidma qayaxan kalama soo horjeysan doonista Ethiopiaanka ee helidda dekeda ganacsi inay helaan. waxaase jira laba tub oo loo taxliilin karo ujeedada Abiy ka leeyahay hadalhaynta arrintan. mid waa in si xarfi ah loo qaato howraarada ra'iisul wasaaraha oo toos loo qaato, taasoo noqonaysa inay jirto istaraatiijiyad dhab ah oo ay waqtiga fog Ethiopia ku xaqiijinayso gaaridda badda. midda kalena waa in la dhexgeliyo siyaaqa siyaasadeed oo lala akhriyo duruufaha kale ee ku gadaaman ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu 2 sano ee taladiisa ugu horeysay saaxadda keenay siyaasad furfuran oo iskuwad ku sifaysan, taas oo iscadowsiga dalalka iyo qowmiyadaha geeska Afrika ka doorbidaysa iskaashiga iyo sidoo kale wax wada qaybsiga iyo horumarka. waxa uu u muuqday hogaamiye mandiqada u horseedi kara jid ka duwan midkii uu isagu dhaxlay. waxa uu af macaan kula hadlay cid walba, waxa uuna soo afjaray colaadii Ethiopia kala dhaxaysay Eritrea sanadkii 2019 waxa uu qaatay bilada nabadda ee Nobel. markiisa uu xukunka joogay 2 sano, ra'iisul wasaare Abiy waxa uu qaaday wax la oran kara tilaabadii ugu cawaaqibka xumayd intii uu hayay xilka, taasoo ahayd duulaankii gobolka Tigray iyo waxyeeladii aadka u ballaarneyd ee duulaankaasi ka dhalatay. 2 sano oo dagaal sokeeyo oo lagu riiqmay ah, lagu kala qaybsamay, faragelin shisheeyana laga dhaxlay kadib, waxaa heshiis aan luga burburan ku taagnayn laga gaaray colaada. ha yeeshee sida lagu yaqaano dalalka uu fashilku ku soo fool leeyahay, heshiiskii Tigray ee dabiiqadii 2022 waxa uu sababay kala furfur hor leh inuu ka dhaco darafyo markii hore ku midaysnaa dagaalka oo ay ugu waaweyn yihiin dowladda Eritrea iyo qowmiyadda Amxaarada. bishii Abriil 2023 5 bilood kadib markii la saxeexay heshiiskii dowladda Ethiopia iyo jabhadda Tigreegu ku kala gaareen magaalada Pretoria ee Koonfur Afrika, waxaa qarxay dagaal kale oo weyn oo aan ilaa maanta istaagin oo u dhexeeya jabhadda Amxaarada ee loo yaqaan Fano iyo dowladda Ethiopia. ciidamada Eritrea ayaa iyaguna weli sidii ay 2020 u soo galeen dalka u jooga, iyagoo markan taageeraya jabhadaha ku kacsan dowladda. iyadoo uu xalku Ethiopia halkaa marayo, ayuu Abiy Ahmed bilaabay hadallo aan loo meel dayin looga baran oo u muuqda
kuwa lagu qarinaya fashilka dalnimo ee ka jira gudaha Ethiopia kana dhashay tallaabooyinkii qar iska tuurnimada ahaa ee uu qaaday qudhiisu. 1 January 2024 waxaa mar un si kadis ah shaashadaha uga soo muuqday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo saxiixaya MOU-gii caanka ahaa ee la xiriiray aqoonsiga Somaliland iyo badhelida Ethiopia. haddana ilaa iyo maanta Somaliland waxa ay diyaar u ahayd inay dhankeeda fuliso heshiiskii Ethiopiana laga helo aqoonsigii iyo wixii kale ee la isku afkartay. se Abiy Ahmed ma qaadin wax tallaabo ah oo hore ugu sii marinaya arrinta. waxa uu se iska sii watay hadaladiisii goob walba ka sheega ahaa ee ahaa in gaaritaanka baddu ay tahay qodob jiritaanka Ethiopia la xiriira. halka marka ay marayso waxaan ka baaqsan karin inaan soo xusuusto aragtidii caankeed ee uu ciriyay xildheerihii culumta siyaasadda ee reer Mareykan ee lagu magacaabay Robert Putnam ee loo yaqaano ciyaarta labada heer two-level game theory ee tibaaxaysa in hogaamiyaashu ay siyaasadda arrimaha dibadda go'aamadeeda gaaraan iyagoo maanka ku haya laba arrimood. waxa uu ugu yeeray heerka koobaad oo ah mid u dhaxaysa hogaamiyaasha dalalka gorgortamaya oo kala matalaya dadkooda, iyo heerka labaad oo ah mid ay hogaamiyaashu dibadda kula hadlayaan si ujeedadeeda dhabtahay ay tahay inay dadkooda fariin dadban u diraan. habka uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uga hadlo arrinta badda isagoo u dhigaya inuu jiritaanka Ethiopia ku xiran yahay inay ka baxda bad la'aanta waxaa ka muuqata inay tahay fariin heerka labaad ah uu ra'iisul wasaaruhu ku mideynaya dadkiisa kala irdhowsan kuna abuuraya haltabin ama sheeko halgan cusub ah oo la wada leeyahay. laakiin haddana sida ay tibaaxaysa aragtida Putnam waaqica geeskuna uu maanta u waafaqayo markay hogaamiyaashu adeegsanayaan heerka labaad ee ciyaarta oo ay howraaro aan loo meeldayan kusii daynayaan dalalka ay ka hadlayaan. waxaa kacaya falcelinta dalalkii dibadda ahaa xataa haddii ay yar tahay cabsida laga qabo inay hadalladaasi dhab yihiin oo ay dhici karaan. maanta dalalka sida Soomaaliya iyo Eritrea waxaa kacsan tafaasiirta laga bixinayo waxa loo arko horornimada Ethiopia xataa haddii la og yahay in uu dalkaasi lafihiisa la leecleecayo oo aanu taag iyo tamar u hayn inuu cid kale isku taago. sidaa daraaddeed abuurista haltabinta ay Ethiopiaanku wadaagaan oo ay ku midoobaan ayaa ka dhignaan karta dareen halis iyo walwalka abuuri kara dalalka jaarka ah. waayo xataa haddii ay fariintu hadda tahay mid heerka labaad ah wax diidaya ma jiraan inay mustaqbalka ka gudubto oo ay gaarto mid ah heerka koobaad. waayo haddii fariintu shaqayso dadka Ethiopia ku midoobaan howraarta Abiy Ahmed ee xoog iyo xeeladba xebraadinta ah oo ay jaanta iskula helaan xaqiijinta yoolkaas waxaa imaanaysaa inay fariintu ka gudubto heerka labaad oo ay timaado heerka koobaad. ma isku ka saaran yahay sawirka guud.